wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta degmada Xaraale ka daafurtay talaalka ka hortagga caabuqa COVID-19. Talaalkan oo ay maanta qaateen ku dhawaad 100 ruux oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka, booliska iyo dadka da'da ah ee u nugul cudurka safmareenka ee COVID-19. waxaa degmada Xaraale ka daafuray wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Axmed Mire Cali Faafaale, agaasimaha guud ee wasaaradda Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed oo weeliyaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud. gudoomiyaha degmada Xaraale Bashiir Daahir Yuusuf ayaa ka warbixiyay tirada talaalka ee la soo gaarsiiyay degmada Xaraale. wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud Mahad Xasan Nuur Xaydare iyo wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Galmudug Axmed Nuur Xaaji Cusmaan oo goobta ka hadlay ayaa wasaaradda caafimaadka Galmudug kaga mahad celiyay dadaalka ay ku bixisay inay dhammaan deegaanada Galmudug la gaarsiiyo talaalka hortagga caabuqa coronavirus kaasi oo haatan dunida walwal xoogan ku haya. wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Axmed Mire Cali Faafaale ayaa sheegay in talaalka uu yahay hortagga caabuqa coronavirus isagoona bulshada degmada Xaraale iyo deegaanada hoosta ee kula dardaarmay qaadashadiisa. intaasi kadib waxa ugu horeyn hadal ka furay gudoomiyaha degmada Xaraale Bashiir Daahir Yuusuf. waxaana la joogta madaxda caafimaadka iyo madax kale oo Galmudug oo badan oo wasiiro iyo xildhibaanaba leh waxa ay noo keeneen 2200 oo qof talaalkood annaguna waanu ku faraxnay waana ku qanacsanahay. waxay kaloo noo sheegeen wixii idinka dhimanaada oo talaal ma waayeysaana waana yiraahdeen. runtii maantay waxa ay noo tahay sharaf iyo farxad in aan maantay goobjoog ka ahano munaasabadan ballaaran oo lagu daahfurayo talaalka degmada Xaraale ee COVID-19. runtii maalmahan oo dhan Xaraale waxa ka jiray caqabad badan, dad badan oo u dhintay, xalay qofkii u dambeeyay u dhintay caabuqan coronavirus. wasaaraddan waa uga mahad celinaynaa inay maaragtay oofisay oo fulisay waxyaalihii ay ka tabanayeen dadku. waxyaalahaasu markaan u kuurgalnay waxay noqdeen waxyaalo farsamo oo runtii ku dhacay si aan ku talagal ahayn. waa uga mahad celinaynaa wasaaraddu doorka ay qaadatay iyo sida ay ugu heelan tahay inay maaragtay bulshada reer Galmudug dhammaanteed u adeegto, khaasatan bulshada reer Xaraale oo runtii hadda cudurku uu maaragtay saameyn xoog leh ku yeeshay. waxaa maanta sharaf weyn noo ah in laga daafuro degmadii Xaraale talaalkii COVID-19 iyadoo ay nala joogaan maanta wasiir dowlihii, agaasimihii guud iyo wafti kale oo ka socda wasaaradaba. runtii waa ugu mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen qabsoomidda shaqadan golaha wasiirka iyo waliba wasiir dowlaha, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimahaba si isku mid ay ugu shaqeeyeen runtii in laga baxa gaabkii heestay degmadan iyo deegaanadanba iyo dhammaan Galmudugba. runtii juhdi badan ay geliyeen, waa ugu mahad celinaynaa dhammaantood. midda labaadna madan ay maanta hadee nooga daafurayaan waxaan leenahay alxamdulillah waa mahadsantihiin. dadka reer Xaraalana waxaan ku aqaanaa runtii dad wacyi gashan, culamadooda iyo maamulkooda waa si joogta ugu istaageen wacyigelinta talaalka COVID-19 iyagoo raacaya tilmaamaha wasaaradda caafimaadka. ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Galmudug Axmed Mire Cali Faafaale. halkaan maanta waxaan u nimid degmada Xaraale in laga daahfuro talaalkii COVID-19. talaalkaas oo runtii muhiim u ah bulshada reer Galmudug guud ahaan. maalintii labaadna socda oo qamiistiisa official uga bilowday dhammaan degmooyinka Galmudug intooda badan. maanta halkaan waxaan u nimid marka in la daahfuro oo bulshada lagu bilaabo. waan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada Xaraale inuu asagu oo noqdo qofka ugu horeeyo degmada Xaraale lagu talaalay, bulshadana uu noqdo tusaale. waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino bulshada reer Xaraale iyo deegaanada hoos yimaada in talaalka la qaato. nambarka la keenay oo 2200 oo qof talaalkiisa ah waxaan rabnaa inaan dhameysiin maalintii 202 qof la idinka rabaa inaad talaashaan 10 bariyo talaalku soconayo. iskaashanayo tiimamka wasaaraddu u soo qortay, tiimka wasaaraddu u soo qortay degmada inay ka shaqeeyaan iyo maamulka degmada iyo qaybaha bulshada kala duwan inaan iska kaashataan haddii la yiraahdo oo talaalkaas sida ugu macquulsan loo socodsiiyo. Mudug oo masaajidda iyo meelaha madarasooyinka laga fuliyo tilmaamaha caafimaadka iyo awaamirta caafimaadka laga qaato waan ku ammaanaynaa culimada reer Xaraale iyo deegaanada hoos yimaadaba
inay runtii bulshada si fiican u wacyigeliyaan waxaan is dhihi karaa meelaha ugu baraarugsan yahay cudurkaanu ayay kamid tahay Xeraale kamid tahay waan ku amaanaynaa waxaan rabnaa in la sii joogteeyo Xuseen Cali Xuseen telefishinka caalamiga ee SABC TV degmada Xeraale